السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada warbixin ku saabsan dalka Djibouti. Dalka Djibouti waxa uu ku yaalaa geeska Afrika waxaana uu xuduud la wadaagaa dalka Eritrea, Ethiopia, Somaliland ama Soomaaliya iyo dalka Yemen. Djibouti waxa ku yaala marinka ugu mashquulsan ee ay maraan maraakiibta waxaana la yiraahdaa Bab al-Mandeb. Wadanku wuxuu qaybsamaa 6 gobol caasimadiisuna waa Djibouti. boqolkiiba 70 dadka reer Djibouti waxa ay ku nool yihiin caasimada. Magaalada labaad ee ugu weyn waa Ali Sabiix. Djibouti waxa ay sheegataa jasiiradda Dumera iyo jasiiradda kale ee la yiraahdo Kalida oo ay isku haystaan dalka Eritrea iyo jasiiradda la yiraahdo Dabali oo ku taala xeebta gobolka Obokh. dalka Djibouti wuxuu xorriyadiisa ka qaatay dalka Faransiiska 1977 waxaana ay codeeyeen inay noqdaan dal madax bannaan. luqadda koobaad ee Djibouti waa Faransiiska iyo Carabiga waxaana ku xiga oo soo raaca Soomaaliga iyo Canfarta. afka Soomaaliga waxaa loo adeegsadaa heesta calanka, afka Faransiiskana waxaa loo adeegsadaa waxyaabaha caalamiga ah oo dhan sida elektrooniga, alaabaha, waxyaabaha la iibsanayo. dhaqaalaha dalka Djibouti gabi ahaanba waxa uu ku tiirsan yahay dekedda Djibouti oo ah mid aad u camiran waxaana wax kala soo dega kana dhoofiya dalka Ethiopia. dalka Djibouti waxaa saldhigyo military ku leh wadamada Faransiiska, Mareykanka iyo Japan iyo dalka China. dalalkan waxay leeyihiin xiriir diblomaasi waana caawiyaan dalka Djibouti. Soomaaliya waxay u tixgeliyaan sidii walaal ay waajib tahay in la jeclaado. saaxiibka ugu qaalisan waa Ethiopia. Ethiopia waxay si fiican ula shaqeysaa Djibouti iyadoo wax kala soo degta waxna ka dhoofisa dekedda. waxaana ka helaan Ethiopia cuntada iyo leydhka. dadka ku nool Djibouti waa 872,000 oo qof waxaana ay ka kooban yihiin 2 qabiil, boqolkiiba 60 qoomiyadda Ciisaha ah iyo boqolkiiba 35 qoomiyadda Canfarta ah. inta soo hadhay waa in yar oo Carab ah, Faransiis, Ethiopian waxaana isticmaalaan lacagta dalka Djibouti, Djibouti franc ama franc Djibouti. haddii aan dhanka ciyaaraha fiirno, xulka qaranka dalka Djibouti waxa uu xiriirka kubadda cagta ee FIFA uu ka mid noqday sanadkii 1994 waligii kuma uusan guuleysan koob adduun heer aad u wanaagsanna kama uusan gaadhin. mar walba waxa uu ku hadhaa isreebreebka. sidoo kale waxay ka qayb galaan koobka qaramada Afrika iyo kan bariga iyo bartamaha Afrika.